علي حامود أنا دنا أوضل بكش قينين وهدات هذا حير عيسى كورن كعرر يا بكورن يا يسوى هدات هذا وارب القرن كورن دلك جبوتي أنا سوالي لا لا قولي كورن هدات كنت واكس علي حب وكعرر جير اللي فترقي سوى حلي باسا برو تهريبي أي مكو يسوي لك حاجة متشوابي كرجير وارمود ريال وار علي حامد يارو يدكو شقيسن يا جير يارو يدكو شقيسن وار شرقدو فشل ما يش السنة فدي يارو يدكو شقيسن وار مدنيال baa tira dadkii noo shaqeeya aniga imika waxay igu haystaa qof deegaankaaga aba gudigaad ku soo dirtay warda gudi baanuna ina Cabdi Fale xaq buu leeyahay Soomaaliland buu xaq ugu leeyahay wiilgii buu shaqeynayay wuu u lahaanaya waxa wax ka weyn buu qalma golaha labadaan nin golaha way baabiyeen awoodihii golaha ku shaqeysteen anigu ninka koobaad u halgamaya maan ahay sidii golaha loo badbaadin lahaa waar ma gola giiray Cali Xamed gudoomiyaha baa loo kordhinaya وهر دورشة هالجلية أو ضلك دورشة هجرة أو دورشة هالجرة وعلي حامد يجير ماشي قدامي كيهين إيه مدخلين تدوري سوا ولا على عربي ترى شيء إذا كل شيء ذاك سكنار وحبيب تشرو ويسكش شقة قلوي شقة أنا وادر كيسينو ورتح صحافة دن وادك سينو ده وحويا شقة برلمانكو وأكل فكر دوانان لكن دبعتها دعدي واحد تحي قلهني كنت مددر بوشري إبي كانوا كراسة صفر إبي قاردونية وقالوا دونية وحيد كوا يندرا يدين كقولين صحافة يدين كوا إناد أود ويدين ساكا إناد صوغ شان قولها صوغ شان أو مدن ياشي الدورتين أي رالي كالنقدان إن جيري علي حامد أيدين كحران إناد قدها قشان مدن يالماني دورن ما دورتين مدن يال مدن يالمتي ديوانيga idin doodaya anigu idin doodaya ee dadkii u doodaya ee cadaaladii u doodaya miyaana idin oran karaynin waar ninka bal qof iyo laba soo raacay xitaa ya go'aan goluhu gaaray warbaahinta waa laga joojiyay inay gudaha gashay xidhibaan giira ku gaaray goluhu kumu gaaray waxa ku gaaray Cali Xamuud goluhu mu gaaray go'aan golaad haysa wariyaa tahay ma soo bandhigi kartaan wax waxa weeyaan go'aan gola ka dhacay soo bari karta gudaha baadana loo galay maxaa de waa khalad bay kugu tahay way khalad bogtaan inuu ku sheegaya hadaba arintan laga joojiyo warbaahinta idinka maxay nuxur waa khalad waa sharci darro leedin kamala joojinayo aniguna maanta waxaan idin ballan qaadaya dastuurku wuxuu idin qoray oo ah gola xore inaad warbaahin qaran tihiin inaad soo galeysaan golahan idin ballan qaadaya يا ساك محاجري مركي تاكن نماندا ساك محاجري لبدي حبنود باد هوركنتay gudida cadaaladda oo gaana ku galay anigu ninna ka haybadaysan maayo hadii sharci darro golahan laga sameeyana sharci darro inaan ka aqbalaya ma jirto ana galay aniga cidiga joojin kartaa golaha ma jirto waxaan diiday waxa weeye ee nuxurku yahay gudiga cadaaladdu ee qaranku waa 10 xubnood oo gudiga cadaaladda waxa weeye 10kii xubnood labadii golaha wakiiladu u lahaa xaq ayaa gudiga cadaaladda soo magacaawday si sharciga waafaqsan ayay gudigu soo magacaawday iyadoo adeegsanaysa gudigu dastuurka iyo xeer hoosaadkeeda adeegsanaysa ayay soo magacaawday sidaa daraadeed giire iyo Cali Xamuud doonayay inay laba xubnood oo gaar ah meesha iyagu geeyaan oo aan dana مثلين أو دل مثلين دنا برينا مثلين oo iyagu dana gaara watay ayaanu gudiga cadaaladda haddaanu nahay ka diidnay danabiyadoodii gaarka ahaa waxaanu xulayo aqoon-yahanka Soomaaliland ka xula laba oday oo qiimo leh nin odaya oo dalka u soo shaqeeyay oo la garanayo oo qiimo leh ayaa ku guuleystay imtixaankii gudiga cadaaladda aanu qaadnay waan keen Cabdi Fale leeyahay Ahmed Cabdi Fale ninka leeyahay barisam kan jir yes iyo nin leeyahay Ahmed Cabdi Jaama labada xubnood ayaa ku guuleystay maxaa lagu diiday walaal deedhigayso yaa diiday ma gala diiday badi gudiga way process garaysa way diyaarisa dabeedna iyagoo labadan oday doonayay laba xubnood oo gaar ah ayay si ay uga faa'iideystaan Cali Xamuud oo aan dana awdalba ka shaqeynin oo hadda tirada xeer ciise ka waran ka cararaya imika ya bika oranaya ya isagoo hadda tirada warbal qaranka ka waran dalkan Djibouti ee aan Soomaaliland golay ka waran dad ku tawaakas Cali Xamuud uu ka cararaya giire laftirkiisu waxa la yiri baasa baru tahriibiyay imiko isaguna kaagama jawaabi kara giire wasabaro nocma de ku Djibouti oo dara gaaray labadoodu ku iska shaqeynayaan oo aanay dan bari metelin oo aanay dan awdal metelin ayay doonayaan inay madaxweynaha dalka u shaqeynayaan ee itiraafka keenay miiskiisa culays tul dhigaan laba arrimood oo gudigu lahayd
oo goluhu inuu gacan u taagayahay oo fududayd ayay ku leen madaxweyne qaranka lagala hadlaya waa bal ilmaad reer ilaahay bay ku dhaarshay bal qodobada dastuurka qodobka 108 iyo qodobka 107 bal akhriya inta xitaa umadu ma sheegi karaysa saxaafada bal labada faafiyo xataa waa bal qodobka 108 iyo 107 ee ka hadlaya guddiga cadaaladda iyo cidda soo magacaabaysa labada xubnood golaha wakiilada ku leeyahay ma culayska xafiiska madaxweynaha loo saaraya madaxweynuhu wuu dadaalaya reer awdal buu dadaalaya reer wuxuu keenay ugaaskoodii buu keenay Soomaaliland oo dhan buu mideeyay suldaankii buu keenay sanaag buu keenay weydinkii arkayay shirkii nabaddu dabeedna si ay ugu xoqdaan oo madaxweynahana ay pressure ugu saaraan waxa أو كلية شيء قدامك وهي كسارة تيبو كلية إنه حالة الضلك يا اللي سكرت أنا داري سكر كودا وحوي وحيابا نوع عسى وحويان وحكراي طبعا مدنيال خير أو ذلك لا بقولي مدنيال شرير أو ذلك ولم يدرك تيجوا كهلا أيه وحيابا كلا الضلك أنت صوّح بانو أنا من السوق شيء إنه أنا كلاش قايل وأنا كش صاحبتي ذي ويا إبات بتشران وأنا تاجرسني حالة أو ذلك قفك كوبا كش قايل بان هنو وقت سوا وارمودنا يال وار علي حامد يارو يدكو شقيسن يجير يارو يدكو شقيسن وار شرقدو فشل ما يش سنه فدي يارو يدكو شقيسن وارمودنا يال با تير ددكنا و شقeeya aniga imika waxay igu haystaa qof deegaankaaga aba gudigaad ku soo dartay waarda gudi baanuna ina Cabdi Fale xaq buu leeyahay Soomaaliland buu xaq ugu leeyahay wiilgii buu shaqeynayay wuu u lahaanaya waxa wax ka weyn buu qalma Soomaa runtii yaa runtii ayna waxa wax ka weyn Axmed Cabdi Fale iyo ninka kale aqoon-yahanka ee mudane Axmed Cabdi Jaamac u qalma golahan waxay ka dhigeen niman kale fadhida ka dhigeen mudanayaasha qudhoodu deegaanada ka soo jeeday bariga waar anigu hadday iyagu golaha saaka waxa raali kaga ahaayeen oo sii fadhiyaan qabashada giireel ahaayeen inay qabtaan bay ahayd inay yiraahdaan ka joog bay ahayd mudanayaasha Soomaaliya inay qabtaan bay ahayd golaha labadan nin golaha way baabiyeen awoodihii golaha ay ku shaqaysteen anigu ninka koobaad ee u halgamaya maan ahay sidii golaha loo badbaadin lahaa muddo kordhinta ku sheegaya waxaan socday imika waar ma gola giiriye cali xamid gudoomiye kiin baa loo kordhinaya waar doorasho hal geliyo oo dalku doorasho ha galo oo doorasho hal galo oo cali xamid iyo giire meeshii gudoomiye ka yihiin ee muddo kordhinta doonaysa waa ku ayaan daro waa ayaan daro waar yaga wada ka shaqeynayo ummadda xumaantada ka shaqeynaya ka wada ka dhaxflagaatay golaha gudoomiye saakada ma wada flagaado taaf Soomaaliga saxaada hadee noocan meel soolka miyuu ka haystaa liisan miyuu haystaa waa liisan adeer hayna adeer waxba ima weydiin kartaa sharci kuma ogolaad waxa ay wato kordhinayna sheegayso kada waxaad ka mid tahay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland muddo la idin doortay maalinta ay muddadaasi dhamaatay adigu kursiga ma banaynaysaa adeer dhigayso qodobka muddo kordhinka cidi kama doodeynin nuxurka meesha yaala waxa weeye nimanka noocaas ee fashilmay anigu cid aan la hadlayo waa golaha wakiilada nimanka noocaas ee ku fashilmay shaqadan ma sii wadi karaan arinta kale aan idin sheegaan idin dhiglay garan waxa weeye labada xubnood guddiga cadaaladdu iyaga shaqeynaya haday inta iga gunta laba aan iyaga ahayn golaha wakiilada kama tagayaan ma ifahantay labada xubnood cid aan ahayn kama tagayaan golahan iyagaana la ansixinaya arinta kale aan idin sheegayo in marba ciidamada qaranka ay u tagaan oo gudoomiye giire hogaamiyo oo yiraahdo halkan baan ku ayaayo ciidankii baa ka soo baxay meesha la yiraahdo ka soo baxay galbeedka ka soo baxay ciidankii bariga la qarabiya ka soo baxay oo waxa ku shaqeeyaan oo garayaal ka soo baxay oo doonayaan bal culaysyada bal golaha wakiilada ragii hogaaminaya hogaanka waxa ayaa arrimo noocaas ka shaqeynaya oo wax noocaas abaabulaya oo doonaya inay arrimo noocaas yiraahdaan waliba darajooyin ku helaan oo lagu dhageysto oo xafiisyada qaranka ee xushmada leh shaqeynaya culays noocaas saaran waxaas waxaan leenahay mudanayaal waa shay labadan xubnood guddiga cadaaladuna laba aan yaga ahayn socon maayaan dagaalka galbeedka ka socda Soomaaliland ka gol ahaan waad ka gaabiseen idinka ma idin la samaanu gaabino markii cali xamuud awda laga soo doortay uu ka baqay inuu go'aan ka qaato waxaanu nahay kuwii ku dhiiriday ee u yeeray ee subaxdii ku raha maqnaan ee waxa weeye madaxweynaha nabadda kala shaqeeyay ee go'aanka golahan ka soo saarnay go'aan baanu soo saarnay waa tii uu madaxweynuhu ku shaqeeyay ee la joojiyay dhibtii iyo wixii socday lagu kala aragtida duwana iminkana nabad baa socota nabad baananu ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah inay nabadda ka shaqeeyaan inay nabadda ay gamca wada jirba wax ku gooyaan iyagoo wada jira inay ay nabadda Soomaaliland meel ay isu wada taagaan ictiraafka ka shaqeeyaan nabadgelyada laga shaqeeyo
nabadgelyadana laga shaqeeyo mudanayaasha golaha wakiiladuna gaar ahaan kuwa waxa daawanayay ee saaka golihii baan xidha ee intuu dare gaara golaha u yimi xeer gaara ka ansaxsaday oo uu dare gaara ka lahaa ka ansaxsaday ka cararay fadhiga kaga cararay ee daawanayna waxaan war xalaba daawan arrimahaas oo kale war uma ahayn cid gaara buu ahaa xukuumadda lagu khiyaameynayay dawladnimada lagu khiyaameynayay danaha midnimada ummadda lagu khiyaameynayay waa xeerka ajandaha golaha la soo geliyay mala konton jeerin ka badan xeerkii warshada bal gudoomiye geeri caraydi ka jawaar shirkada ma ku dhex jira ku dhaha 200 oo jeer ay wax kala maxaa waddanka imse xeer baa yaala 100 xeer baa yaalo muhiim baa yaala diyaar uma aha nimankaas way fashilmeen ragga sharafta la shira kood burbaa kamid oo halka maraya waynu hambalyeeynaa dadka waxa weeyaan labadan xildhibaan labadan guddi cadaaladeed ee soo xushay guddidaada gudoomiyaha guddi cadaaladda dantaanu kale ujeedada aan kale yahay waxa weeye ujeedada aan kale waxa weeye in guddiga cadaaladda oo xubnahoodii banaanaadeen inay ku biiraan oo adiga aftuush adeer ku shaqeeyaan oo ay adiga wax ku taraan baan danta gaarka dan gaaro aniga igu jirta ma jirtee inay xubnaha cadaaladdu adiga ku shaqeeyaan baan doonaya giire iyo cali xamudna indhahay ka ridaya waad fahamtay soo bax dib loo eegi maayo mushkilad aan oolba iyo arrimihii dastuurka iyo wixii la isku haystay iyo xaaladii guud ee tabashadii reer awdal ee awalba taalay ayay doonayaan inay cali xaamud iyo giire ay madaxweynaha ku gacanta ku maroojiyaan oo ay waxa wax kaga helaan waxaan leenahay madaxweynaha waxba lagama helo madaxweynuhu waa madaxweyne ilaahay garanaya ummadan iyo dalkan iyo dadkan u shaqeynaya itiraafkii u keenay nabadgelyadoodii sugay ciidankii ka qarameeyay culaysyadii ka qaaday waar waxaas idinka shaqeyn maayaan baan u leenahay